السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقي النبي سليمان عليه السلام قصيرة ودعضة runtii cashir badan aan ka faa'iideyno aydina wadaaga maalmaha ka mid ah waxaa dhacday shimbir waxay damacday inay ceel biyo ka soo cabto markii ceelka ku dhawaatay yaa waxay aragtay in ceelka carruur yar joogaan oo carruur yar ay biyo ka cabiyaan iyaguna marka waxay isdhahay haddii hadda ceelka aad tagto ood carruurta ugu tagto carruurta laga yaabo inay ku dhagax tuuraan oo ku dhibaateeyaan marka iska sug marka carruurta ka tagaan aad ceelka biyaha ka soo cabtid marka carruurta saa u tageen ceelkii saa uga tageen waxaa dhacday nin odaya oo ka dheer inuu ceelka imaado marka shimbirta waxay isdhahday ninka nin mas'uula waaye nin odaya waaye gadh weyn buu leeyahay waxba ku yeeli maayo iska tag oo muxuu ahaa adigana biyaha agtiisa ka cab ninka odayga wuxuu sameeyey shimbirtii buu dhagax ku qaatay shimbirtii buu ku tuuray shimbirtii buu ilka riday shimbirtu waxay samaysay marka waxay u dacwootay nabi suleymaan calayhi salaam waxay dhahday ninkaasaa isha iga riday muxuu cadaalad ha laga waxeeyo ninkiina waa kaas ninkaasaa iga riday oo isha muxuuha dhagaxa igu tuuray ninkii baa loo wacay ninkii baa waxaa la weydiiyey war shimbirta adiga masaa u gala dee muran ma joogay haa marka shimbirtii baa hadasho waxay tiri aniga ninkan garhkiisa isire isagu waxba ima yeelin oo garhkiisaan aaminay markaan arkay inuu garhkiisa iyo ninkaas nin oday yahay yaan aamino waxba kuma yeelaaye ninkan garhkiisa i dilay sheekada nuxurkeeda iyo waxa ka faa'iideyna waxaa waaye qofka muuqaalkiisa iyo muuqiisa kore waxbaa ku xukumin ma garanaysid waxa gudaha ku jira ma garanaysid qof macnaha noocuu yahay yacni don't judge the book by its cover waa garanaysaan maxaa odhahdaas yani qofna muuqaalkiisa ku xukumin yani qofka marka gudihiisa u dhaadhacdo markaas ogaanay wuxuu yahay wuxuu galiyo wuxuu gudo. Assalaamu calaykum.